الرحيم waxaan maanta halkan baaq uga direeyaa jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha ku nool waxaan leeyahay waxa jira abaar aad iyo aad u baan oo ka jira gaar ahaan dhinaca bariga ayaa ka jira sidaa daraadeed wax la qaban karaa oo doorashada madaxweynaha ma jirto waxaan leeyahay dadka dadweynaha abaaro hayaan waa in la caawiyaa sidaa daraadeed waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Xamuud Siirayo haloo kordhiyo sababtuna waxa weeye waxa qabadkiisu way badan yihiin si fiican buu dalka wax uga qabtay runtii abaaro badanna way jiraan sidaa daraadeed lama doorasho ma dhici karto iyadoo ay abaar jiraan doorasho ma dhacayso waxaan leeyahay markaasi golaha guurtida waxaan leeyahay haloo kordhiyo 2 sano haloogu daro si uu dalku wanaag qurux fiicni u yeesho xildhibaan garabkiis baa haysiga wadana ku biiray xukuumadda ka baxay iyaga sida kuwaasi xaq buu leeyahay meeshay doonaan galaan siyaasadii ka xisbigii u cid waxa noqotay laba garab halka waxa ka soo muuqday xisbigii cudurka qaybka uu saaran yahay inuu ku dambeeyo halka xisbigii cudurka ku jiray marka waran xaaladda xisbiga u cidayada haddii uu xisbiga uu baaboo cid wax doorasho oo dhacaysa ma jirto sababtuna waxa weeyaan 3 baa tartamayay 3 hadduu mid haro wax doorasho dhacaysa ma jirto sababtuna waxa weeyaan dib ayaa loo aasaasaya xisbiyo kale marka maxaad ugu baaqaysaa mas'uuliyiinta cudurka waxaan ugu baaqayaa war heshiiya walaalaatiin heshiiya oo danta ummadda hal dhowr